halkani waa degmada Hurufadhi ee gobolka Cayn waxaa maanta ku soo gabagaboobay wajigii koobaad ee nabadeynta labada beelood ee Hagar iyo Hayaag oo in muddo hawshooda nabadeynta ay ku jireen ergan nabadeed oo hogaaminayo Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac oo ay ka mid ahaayeen isimo iyo culimo iyo wax kala yimi deegaanka ka tirsan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxaana maanta la isugu keenay madal ku tala degmada Hurufadhi oo si weyn loo xidhay isla markaana ay ku sugayeen wax garadka kale iyo odayaasha deegaanka Buuhoodle waxaan halkan si weyn loogu soo dhaweeyay ergada ka timid degmada Ceegaag oo isugu jiray cuqaal wax garad iyo nabadoono oo horkacay Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac iyo ergada nabadeynta walaalayaal madashani waa madal islaax iyo nabad loo joogo way Ilaahay subhanahu wa ta'ala islaaxa waxa uu faray labada qof ee wax ka dhaxdhacaan ama laba ha ahaadeen ama beelaha ahaadeen ama dawladaha ahaadeen labada dhinac inay ayagu naftooda islaaxa ka shaqeeyaan baa Ilaahay amray fattaqullaha wa aslihu dhaata baynikum ba Allah subhanahu wa ta'ala Ilaahay ka cabsado oo dhexdiina islaaxiya ba Allah subhanahu wa ta'ala Ilaahay subhanahu wa ta'ala islaaxa waxa uu amray umada kale ee ka baxsan ayaga ee meel ku nool ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu amray rabbi subhanahu wa ta'ala oo leeyahay fattaqullaha wa aslihu dhaata bayna akhawaykum Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsada oo walaaladin dhexdooda islaaxiya walaalayaal aqli maaha qofkii wax dilay dabada hal marsado oo 10 kale iyo 100 kale ha ka soo mareen oo dhimasho u diyaar ah walaalayaal aqli maaha qof baa dhintay 100 nool iyo 10 nool laga dabageeyo ha dhinteen junuun weeye iyo wali weeye waxaas jahligaana dhibaatada noocaas leh aqliga iyo sharciga Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ina siiyay mid walba wax ka fog baa dhexdeena yaala Ilaahay subhanahu wa ta'ala aqligana hayno soo celiyo sharcigeena Ilaahay subhanahu wa ta'ala hayna garansiyo eedo go'aamo hordhaca markaanu aragnay xilligan iyo xaaladda duruufeed ee ka jirta deegaanka dhibtu ka dhacday markaanu la tashanay tolweynaha daneeya wada dhalashada iyo walaaltinimada tolka dhibtu dhex martay markaanu qiimeynay baahida loo qabo in jawi degan lagu qabto xaajada waxaanu go'aaminay in magaalada Hurufadhi ay ka caaganaato ciidamada urursan ee labada beelood ee Hagar iyo Hayaag waxaanu samaynay guddi nabadgelyo oo reer Hurufadhi ah oo sugaya amniga iyo la socodka dhaqdhaqaaqa labada beelood 3 gogoshu waxay taalaa magaalada Saaxdheer 4 muddada gogosha lagu tagayo waa 7 maalmood oo laga bilaabayo maalinta heshiiska la saxeexo 5 waxaanu ka qabanay labada beelood gudiyo u xaajeeya 6 wixii aan ku dhammaan wada hadal iyo sulux waxaa lagu galayaa shareecada islaamka 7 waxaanu xukun iyo ganaaxyo ka ratinay jabinta heshiiska qodobka koobaad dilka qofkii qof dila ama cidii qof disha waxaa lagu ganaaxayaa 50 halaad b dhaawaca ama cidii cid dhaawacda waxaa lagu ganaaxayaa 25 halaad xabadda toogaalka ah waxaa lagu ganaaxayaa 15 halaad weerarka lagu qaado magaalo waxaa lagu ganaaxayaa 50 halaad qodobka 8aad ganaaxa waxaa wada bixinaya intii mag wadaag ah ama isku mag ah ama cidii isku mag ah 9 waxaa qaadanaya ganaaxa ama cidii ganaaxa waxaa qaadanaya dhibanaha ama cidda dhaxalkiisa iska leh qodobada 9 qodob bay ku kooban yihiin intaasay ku kooban yihiin go'aankan wuxuu ka soo baxay gudida nabadeynta ay ugu horeeyaan izimada cuqaasha culimada iyo waxgaradka wabillahi tawfiiq Allah maadle shirka la isugu yimidna
tii nabadii la waayay ku dhalan lahayd Allah ka dhigo ilaahayna waxaan ka baryaynaa cidii fidmo wada inuu fidmada ayada ku ekeeyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nabadda inoo xasiliyo aad iyo aad baa shirku u mahadsan yahay islaam baa tukatay oo waxay tidhi baa la yidhi ilaahu waa kuu tukaday waana iga dhab duca markaa iyadu aan la moodaya inay garanaynin bay ahayd ilaahadow nabadda lagu dhawaaqay ee islaamku sheegay waa naga dhab cidayan dhab ka ahayna ilaahu ku hanuuni anana waa qaadanay wasalaam qodobada nala soo jeediyey ee ay soo jeedisay ergada nabaddu waanu qaadanay waxaanuna u qaadanay si buuxda u qaadanay si buuxda baanu u qaadanay waana soo dhawaynaynaa waana ka mahad celinaynaa alxamdulilah ilaahay baa mahad leh intii laysu sheegay un weeye waa xadayntii waan aqballay intii naloo sheegay insha allah bilmillaahi kariim waa qaadannay waana yeellay waana ku kalsoonnahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu tani maanta inay noqoto tii ugu dambaysay ilaahayow waxaad nooga dhigtaa tii ugu dambaysay ilaahayow intaasi nagu filan ninkii wax xumeeyeyna ku filan ninkii wanaag rabana ku filan ilaahu tii ugu dambaysay nooga dhig waxaan aad ugu mahadnaqayaa mar labaad isimada iyo ergeyda iyo cuqaasha reer sool ee hawshan qaybteedii hore ilaa hadda daadihinayey ee ku soo dabaalay nabad dhex fadhiyey muddada faraha badan labadii beelood iyo meeshii dhibtu ay ka dhacday say u daadihinayeen nasaaka halkan isugu keenay aad bay u mahadsan yihiin waa fayskii koowaad waxaa la xidhay nabaddii waxaa la kala qaadayaa ciidamadii waxaa la soo saaray shuruuc lagu dhaqmayo ilaa gogasha dambe ee Sacdheer ku dhaariya labada beeloodee ilaahay baan idinku dhaariyade iska kaaya ilaaliya ilaahay baan idinku dhaarinade iska kaaya ilaaliya qayrkayaanu ka hadhnay Soomaali baanu ka hadhnay waxaana baabiistay wiilashayadii yaryarka ahaa intaasi intaa weeye inta ii raacdaa waxaa weeye waxaynu qaadanay maanta halka kan waxaa ka dhacaya maanta arrin weyn ilaahay weyn ee waaxidkaa baanu ugu mahadnaqaynaa fadhigeennan maanta ah kulankeenna maanta ah oo wejiga dadku ay ka wada muuqato xadaarad fiican oo toliimo ajiibay ee talkoodu qabsoomay ee waliba xanta naga soo gaaraysa ay xan wanaagsan tahay xan inay dareemeen meesha lagu socdaa inay halaag tahay iyagana waa u mahad celinaynaa waana u ducaynaynaa waxaan leeyahay Allah idin barakeeyo qofkii naga leexsanay ilaahay haynoo soo hadeeyo intaana saasaan leeyahay hadalka wixii loo baahnaa runtii waa la yiri nin baan waxaan maqlay dhulbaanta aba qolo dhulbaanta intay shirtay buu wuxuu yiri say wax isugu tahay tani ma taqaano dhulbaanta ma yaqaan suu wax isugu yahay dadku sidoo wax isugu yahay ninkaas kuma aha Abdullah Haj Faarax waa say isu kala xigto dadku ma yaqaan buuri say isu kala xigto isuma taqaano waxaan hubaa labadiina beelood ay sar fadhiya ragii la sheegay inay tihiinoo sida aad wax isugu tihiin aydan aqoonin anu hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynaa aan iskiin baro cid iska kiin xigtaa ma jirto balin walba adigu is weydii adigu si gaara isu weydii cid iska kiin xigtaa aan kelmadda idin baro waliba waxaan oran lahaa baldin walba shaq adigu kaliga anta qalbigaaga gali cid iska kiin xigta ee cid isaga kiin roon midina ma jirto inta iga barta hadalkan intaasaan ku soo gabagabeynayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت كذب
waxa weeyaan halka kani waa madal iyo markhaati waxaasina in badan bay soo noqnoqdeen ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa tii ay ku soo afgo'say inay tani tahay inaynu adkayno waa inugu waajib deegaanka odayaasha deegaanka iyo ciidanka qalabka sida ciidanka nabadgelyada aan idhaahdo waxaa weeyaan iyana mahadcelintay ku jiraan waxaa kaloo u xil saaran yihiin sugidda iyo ilaalinta mar walba indhahoodu inay furaadaan wixii ilaahay karsiiyo intii ilaahay karsiiyo inteena kaloo dhan ee ka soo harasa tegista la tegayo saaxdheer waxaa ku waajiba iyaguna inay ilaalinta ka qayb qaataan daraawiisha cirkiina wakaas baa ninkii yidhi dhulkiina wakaa hawshaas intay soo noqnoqotay inta guri ku madoobaatay inta dhibaatay naga soo gaadhay caqligeenna saliimkaahi wuu arkayaa waxaana weeyaan caqligu inuu u guuro wanaagga wanaagna wuxuu ku yimaadaa tanaasul la tanaasulay oo cidi hoos wuxuu eegtay waan badiyey baan u malaynaya laga akhriyey waa go'aamo hordhaca oo wakhtigoodu ku eg yahay inta go'aamada waaweyn ka soo baxayaana laga soo noqonayo meesha la yidhaahdo meesha dadka lagu heshiisiinayo xabad joojintay la socdaan egasbaayir bay leeyihiin markaasay dhacayaan oo go'aamo ka culculus ayaa soo bixi doona iyo boon ka culus baa soo bixi doona haddii laha idmo marka la soo heshiiyo oo meesha la tago qodobada haddaan intaa kaga gudbo waxaan leeyahay dhulbahantow waxba nooma hadhin garaadjaaca baanu ka iman jirnay aran jirnay warba adigu halkaagaa iska jooga annagaa tegtagayna meeshoo waxa weeye maanta waa wadnaa baabuurku markuu dheeqada kaa galo sangeyri baa la geliyaa bal inuu dheeqada ka baxo waxaan is leenahay bal colaadahan soo noqnoqonaya labadii hore oo midna taleex ahayd midna qayaad iyo baarasam ahayd ilaahay waa fududeeyey tanna waxaan rabnaa maanta inay ka daba tagto marka waa sangeyrkii weeye waa ridootadii laga saarayey wey ridootadii baa ku jirta maanta hadday ridootada ka bixi weydo baabuurka meesha waa lagu qalaa waa laga tagaa marka waxaan leeyahay ridootadii ugu dambaysay baanu wadnaa maanta waadna aqbalaysaan waa idiin ducaynaynaa guulaysta ilaahay waxaanu idinka barya xabad dambe inayna meeshan ka dhicin ilaahay waxaan ka barya carra dhulbahantoo dhan aan xabad ka dhicin ilaahay waxaanu ka baryanaa colaadaas inagu dhacday iyo foolxumadaas iyo wiilasha waxa weeyaan inaga baxay inuu ilaahay inoogu bedelo nabad iyo wadajir iyo waxa weeyaan quruxda aynu maanta isu dhex fadhino inaynu isu dhex fadhino kullay maanta waxa weeyaan dee xaajo halkan laguma furayn xaajada waa inoo dambaysaa isimada reer caymaydna aad bay u mahadsan yihiin tan haddayan ka dabageyntii hore ay jigjiga geeyeen ee maanta reer sool ay u garteen waxa weeye aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waxay yidhaahdeen reer buuhoodle markii ay warka noo keenayeen gobolka sool baa xaajada aanu maanta u daynay anna hadal baan ku daray oo waxaan idhi ninka soolna ka mid ah caynna ka mid ah xaggee buu xaajada ka gelaya waxaa la labada qayboodba waa gelaya waxa weeye haddaanu nahay salaadiinta waxaa la dhuuntaba af iyo moqorba u warhaysee daanuu caynna waanahay soolna waanahay marka waxa weeye hawshan fayskeeda koowaad halkan baynu maanta ku xidhnay intii dhimatayna ilaahay ha u naxariisto intii naga dhimatayna ilaahay walad khayr qabe ha inoogu bedelo intii dhaawacatayna ilaahay ha u booqadhayo waxaan u malaynayaa qaybta labaad saaxdheer baanu ka dhignay waxaan uga dhignayna annagaa ogo waxyaalo badan markaannu qiimaynay soolna aad hawshii ku wareejiseen waxaanu nidhi annagoo siyaalo badan wax u qiimaynayna colaaddan aanu jecel lahay in mar dambe aynu soo noqon meesha keliyaanu kaga xilbixi karnaa saaxdheer bay noqotay runtii saaxdheer baynu tegaynaa taasna waxaa weeye innagoo gacmo haysanno oo xaajadeennu si fiican u soo xidhantay ayaynu insha allah ka soo noqon doonnaa isimada dhulbahantay gobol ma kala leh xaajana ma kala leh deegaanna ma kala leh insha allahu tacaalaa xaajadan waannu wada leenahay cid baannu u wada qabanaynaa gurigaannu joogno annagaa ka wada ah kama xigno cidina saaxdheer kama xigto cidina sool kama xigto annana cayn iyo sanaagna lama xigo iyo sool intaba insha allahu tacaalaa isimadu lixda isima halkan fadhida waddanka waxaa joogaan u malaynayaa deegaankan shirka ka soo gaari karaysa lixdan isim ee halkan fadhida ee anigu aan toddobada ku ahay iyo garaad saleebaan garaad maxamed oo aannu wargelinnay oo isna insha allahu tacaala haddii duruuftu u saamaxdo
noo imaan doona haddii eebbaydmo intayaduba hareerahaannu ka istaagi doonnaa gogoshu waa gogoshayadii waannu wada dhignay dadka yagaannu ku islaaxinaynaa insha allahu tacaala waa madashii weeye waannu wada leenahay xaajada waannu wada leenahay insha allahu tacaala tolweynaha maanta halkan isugu yimid horufadhi magaalada horufadhi iyo dhulbahantaha dega ee dhexdhexaadka ah siday noola shaqeeyeen waa mahadinaynaa magaaladan allaha barakeeyo abaarta haysa allaha ka dulqaado oo barwaaqaha loogu bedelo colaadii ay soo mareenna ilaahay dib uma soo mariyo ilaahay saasaan ka baryaynaa walaalahooda isdilayna allah u nabdeeyo ciidanka amniga inoo sugaya dhallinyaradeenni iyo wiilasheenni iyo walaalaheen ah allaha barakeeyo wanaag mooyaane xumaan ilaahay inoogama keeno kuwa sidan inoogu shaqeeya mar walba allaha ka yeelo ilaahay saasaynu ka baryaynaa hawshan aynu hayno allaha faa'iideeyo ilaahay wuxuu hagaajiyaa hagaagsanay allaha inoo hagaajiyo ilaahay ha inoo barakeeyo nabadda aynu walaalaheen la doonayno allaha inoo siiyo inana jannatulfirdowsa allaha inugu siiyo inta ka shaqaynaysa u ordaysa wax kale ilaahay hadduu inoo aqbalo camalka waa cibaado waxaynu haynaa haddii ilaahu naga aqbal ilaahu noo aqbalo abaalkii aad ballan qaaday ee weynaan nugu sii ilaahay saasaan ka baryaynaa walaalahayana nabadgelyo noo sii ilaahu intii kale dhibi dhex martayna noo hagaaji ay socotay hawsha nabadeynta waxaan halkan kula kulmay cabdi xaaji cali cilmi cabdireegle iyo axmed maxamed xaaji ilaahi axmed xaaji deglow oo iyagu isu abtiiha isla markaana markii asarkan isu ilmeeyay waxayna ka warrameen dareenkooda ku aadan heshiiskan maanta nabadeynta ka dhacay deegaanka go'aanka allan ka soo baxay iyo nabadeyntu aad iyo aad baan u taageersanahay waana mid loo baahnaa ciddii ka soo shaqaysay isimadu u horreeyaan iyo aqbilaadda beelaha hayaag iyo reeragar aad iyo aad baan ugu mahadlinaynaa waana soo dhowaynaynaa insha allah bismillaahi kariimna wuxuu noqon doonaa insha allah mid dhaqan gala soo afjara dhibaatooyinkii dhowr iyo 10 sano ee dadka walaalaha ragaadiyey aad iyo aad baan ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay xididada u saaro waana rajaynaynaa heshiiskan inuu noqon doono kii xididada u saaray annaguna waa dadaalaynaa ilaahna waanu la kaashanaynaa insha allah bismillaahi kariim wuxuu noqon doonaa mid soo afjara dhibaatooyinkii faraha badnaa ee iska soo daba noqnoqday saasaan aaminsanahay waxaa farxad weyne abtigay waa muddo dheer aan arag inaan halka isugu nimid isa salaanay nabadgelyada aan isla wada qaadanay insha allah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ilaahay idankii wariyahana waxaan ka codsanayaa inuu warbaahinta aad iyo aad noogu baahiyo oo noo fududeeyo insha allah bismillaahi kariim anigana waxa weeye insha allah maanta waa farxad weyn insha allah wixii dambana gogasha waxaa loo rarayaa meesha lee saax dheer wixii dambana insha allah saax dheer baa lagu dhammaynayaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa arrintaa in nabadgelyo iyo walaalnimo iyo ehelnimo in lagu dhaleeyo ilaahay uusan shirkada dib noogu soo celin dhammaan waan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba aadaan u dhowahay aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta nabadeynta guusha ku dhammaatay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa mid khayr leh inuu ka dhigo oo aan mar dambe dhulkeena ka daadan wax dhiig ah hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah ta'ala waxa naga baxay waa dhalinyaradeeni wax naga tagay wiilasheeni marka insha Allah ta'ala waxaan ka baryayaa Allah subhanahu wa ta'ala inay maanta noo ekaato halkaas sida ay sameeyay isimadane waa si wanaagsan walanteena waa saxar dheer